بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتك إلى دوغاني طبعا هودا نورغو هيلاناي هالكني وشبكة عالمية بورم نيوز داوديال maanta waxaan waraysi dhinacyo kala duwan taabanayaan la yeelan doona fadiilatu Sheekh Xasan Daheeye Axmed oo ah culimada waaweyn isaga ayaan kelmadiisa ugu horeysay mahadnaqa siin doona sheekh ku soo dhaw shabakada caalamiga ee Boromo News بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baarto faahfaahsantiin oo waxaan idinka mahadnaqaynaa kulli saad maartay u baahinaysa arrimaha ummadda Soomaaliyeed oo iftiiminaya danahooda iyo hadba wixii u wanaagsan meel kasta ay joogtaan Soomaaliya u baahan tahay in loo iftiimiyo aad baarto ugu mahadsantiin wad mahadsantahay kaasi waxa waa fadiilatu Sheekh Xasan Daheeye Axmed oo waraysi gaarsiinayay shabakada caalamiga ee Boromo News waraysigeena ayaan bilaabayaa su'aasha koowaad waxaan ku bilaabayaa waxa sheekh shacabka reer Awdal ay ka xanaaqsan yihiin taariikhda SLM ee caruurta loo dhigay iskuulada kii yaraa aabihii hooyadii dilay loo dhigay maxaad arinta kale bismillahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah horta waxa weeyaan korka loo eego wadankan Soomaaliland wuxuu maartaanay dhashay oo lagu dhawaaqay 19 shirkii Burco ayaa lagu dhawaaqay Soomaaliland dhalashadeeda iyo goosashadaba habase yeeshee shirkaas kuma jirin wax sanam la yiraahdo iyo nidaamyada hadda maartaanay hoosta laga soo galiyay dad kuma jirin maxaa yeelay sanam runtii waxay ahayd jaanibkii laga cabanayay dhagarta badan ka galay wadankan khaas ahaan Boromo iyo hareeraheeda dhagarta fara badan ka galay dad fara badanna ku laayay ayay ahayd sanam darteed marnaba maartay suuragal maaha nin aabihii la dilay awowgii la dilay maxaydaanay walaalkii la dilay inadeerkii la dilay inaabtigii la dilay qaraabadiisii la laayay inuu sanam maartay haddana ku qaato 10 aw fasalka ku qaato Boromo gudaheeda iyo hareeraheeda ma dhacayso waxaan la aqbali karayna maaha hadhowlna ma dhicin laakiin maanta yaa keenay baa la isweydiinayaa 26 sano 27 sano kadib ayaa hadda la bilaabay sanadkan 7 maartay 17 ayaa la bilaabay 17 macnaha waxa weeyaan kolka laga soo bilaabo 19 waa 27 sanadood limaada 26 sanadood ka hor loo dhigi waayay ee maanta loo dhigaya waa weyn nimankaasi runtii way og yihiin maartay SNM taan jiray khaas ahaan hadday reerkaada ay maartay jaarkana hadday yihiin way og yihiin xasaasiyadda ku jirta SNM oo Boromo laga dhigo aan oran maayo hebel bay dil oran maayo laakiin boqolaal bay dileen oo xasuuqeen habase yeeshee ninka maanta hirgeliyay waa ayo waa nin reer Boromo weeyaan saadarteed ba waxay hadda ay soo gaadhaysay inay leeyihiin wixii anagu aan ku dhici weynay ayuu noo hirgeliyay wasiirka tacliintu saadarteed baal dahab aan ku qoraynaa ayay soo gaadhay haddii baal dahab lagu qorayo dadka iyaga dhintay iyo caruurtoodii loo dhigayaa ciddii laysay oo baal dahab saa loogu qorayo isaga kullaba yeeli mayno aqbalina mayno xaq ma u leeyihiin in SLM waxa xuquuqdii dhulkeena ka geysatay in caruurtii imtixaan laga qaado marnaba xaq nooguma leh mid keliya laga qaadi yaa ila tahay haddii imtixaan loogu soo darayo SNM inay ahayd jaanibkani annagu aan degannahay ee Awdal la yiraahdo nimankii xasuuqii ugu xumaa ka geystay qarniga maartaanay 20 dhamaadkiisii iyo bilowgii qarniga hadda lagu jiro maartay nimankii ka geystay xasuuqii ugu xumaa oo hal habeen san harayba bari hore u sheegay hal habeen dilay 700 iyo 450 ku dilay Boromo gudaheeda maxaad malayn dila maxaad malayn oo tulli maxaad malayn oo maxaad malayn saylac maxaad malayn oo halka iyo maartay geersa iyo wadanka maartay dadkii meedkiisa bilaa lafiis waraab u cunay dadkaas oo dhan yaa laayay waxa weeyaan inay dadka xasuuqi jiray ahaayeen ayaa la xusi karaa oo imtixaanka lagu soo dari karaa laakiin laguma soo dari karo dad maartay la amaanayo oo maartay iyagu say sheeganayaan mujaahidiin ahaayeen manhajka waxbarashada in lagu soo daro beelo dagaal gashay galay caalamku miyuu aqbalaya la aqbali maayo waxa weeyaan beelo waxay ku heshiiyeen
nabadgelyo aan ku wada noolaan ay ku heshiiyeen hadday tahay shirkii burco hadday tahay shirkii barbaraad hadday tahay kii boorame ee muddada dheer la fadhiyey waxaa lagu heshiiyey in beelahu ay ku heshiiyaan nabad saasaana dowladda somaliland lagu dhisay inkastoo anugu nin soomaali weyna kulley iska ahay waxa weeye waxa lagu dhisay waxay ahayd beelahu saa ku heshiiyeen nabadaan ka qaadanno mahadsantahay daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa waraysigeennii dhinacyada kala duwan taabanayaan la yeelanaynay fadiilatu sheekh xasan taheeye axmed maxaad is leedahay siyaasiyiinta aqoon-yahanka waxgaradka galbeedku way ka aamuseen inay ka hadlaan dulmiga lagu hayo shacabkooda waxaan kuu sheegayaa oo maanta ka hor aanaan sheegin ninkii tacliinta gobolka awdal ka mas-uulka ahaa ee aariyowga gobolka awdal haystay inuu ahaa daahir xasan inuu ahaa allah u naxariistay galabnimadii bisha february 4 ahayd 5 barkii ayaa lagu dilay halkii xafiiskiisii agtiisa oo ku maartay isagoo meydkiisina uu laga soo qaaday beerta adeerkii maartaanay Sheekh Xuseen Abraar meydkiisa subaxii dambe laga soo qaaday ninkan wasiirka isku sheegayahay dhigii daahir xasan xaquu mariyay hal isweydiiyo isaga iyo meeyarkii oo 15 oo la dhinteen halkaas labadaba gigada xawlaha iyo beerta Sheekh Xuseen Abraar halkaas meydkooda laga soo guray maantana caruurtii baaqigii soo haray iyo magacoodii raggii la u dhigaya Soomaa waxa weeyaan anigu waxaan leeyahay oo markasta ku celceliyaa siyaasiga reer Boorama hadduu gacanta hoorsanayo hadduu yahay mididin khaadim oo shaqeeya hadduu yahay anagu ma aqbalna ma waana saayihiin min professor kasta arkaysa oo gacanta hoos haysta wasiir maartay miskiin oo halka hargeysa jooga ama waan la talinayaa leh isagoo maartay cilmiyan ka sareeya ama ka weyn dadkan xagga laga qaatay ee maartay ciidooda laga soo qaaday anigu ma garanayo dad mididin ah oo adeegayaal ah oo maartaanay waxuun dhisa oo waxuun maartaanay cidii kasta rarto uun هذا وادر كيسان شعبي قد بورسي إثيوبيا لو حكوا دعية ركب إسكا حيران وعلى يكون يقرنين رك هلا نجم أيه سحر أيه كت اختيارسانية وحاس وحنقبل حويان يعني أصلا بس ياسين هدو ودن كان ليه هاي وين يضل حرة هذا نضد كلا سيمان yaad is leedahay waa ka mas'uul taabacada buut SLM in la taabacay wasaaradda waxbarashada waa wasiir reer awdala ayaa ka mas'uula arintaas aad u sii kula muuqata waana ku weydiinaya ee ku sheegay kule maartay miyuu dhigii daahir xasan maartay oo ahaa aari oogi boorame tacliinta oo ina adeerkii adhigiisii goormuu masaxay oo iloobay midda kale 26 sanadood ayaanan ardayda wax SNM la iyo wax jabhadii kale la mid ah Soomaali burburiyay aan la soo qaadin maxaa sanadkan isagoo jooga loo soo qaaday kutubta lama iibinayo bilaash baa ardayda lagu siin jiray oo waan ognaay oo iskuulada waa loo qaybin jiray hadda isaga iib ku soo rogay haba iibsado wuxuu doonaha naga qaado lacag naga qaado laakiin wax maartay sax ah oo manhajo aan maartay isku waafaqsanahay hanaga iibiyo laakiin ninkaasi kollaba anigu ka yeelaya anu iskuuladani wax badan baan kulahay oo dhismada kulaha Salebaan marka ninka Salebaan gaal la yiraahdo ee hadda guurta haysta oo wasiir ayaan ku ma qaadan karaysaa iskuulada ma qabsan karaysaa oo soo wasiir tacliina ma karayo buri haysta idinku dibadna markii dambe haddii anagu aan wasaaradda ku xoojinay oo wasaaradda tacliinta ku xoojinay de maanta in la nagu qasba maaha waxaan ogolayn wasiirkaasina anaga midna mathalana maaha kana yeelimayno dadka beelaha lagu soo qaadanayeen historyga caruurta loo dhigay iyo taariikhda SLM ee loo dhigay caruurta sidoo ugu haboon oo loo joojin kara ama loo xakameyn kara way soo dhan kartaa anu waxaan kula taliyaa dawladda Soomaaliland hadday doonayso inay beelo wada joogaan sidoodii hore u celiso oo waxa la tibada ninkan keenay horta ha joojiso kow haddii in aqbasho boqolaal kale oo cadhoon aqbalaynin magaalada Boorama haddaan ku tiriyo ragga bacmashtaraha ee lagu dhaxlaayay ragga saraakiilaha la laayay ee maanta nin walba faruurta qaniinsan yahay ubadkiisa qaniinsan yihiin leeyloobi maayo lidaalika waxaan leeyahay manhaj naga dhaxeeya ha lagu soo celiyo wax kale oo aqbalaynaana oo maanta xasaasiyad wadankan laga qabana ma jirto yeelimayno waxa weeyaan hadduu wasiirkan yahay iyo ku ka dambeeya hadduu yahayba kullay anu waxaan leeyahay mudiirada iskuulada dhiga ninka aariyowga hadda joogana waanu sheegay aqbali mayno
oo anagu qaadan mayno wixii 26 sano hor joognay inuu maanta Cabdilaahi Dheere nagu fardiyo ma qaadanayno. maxaad is leedahay siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo waxgaradka iyo hoggaanka dhaqanka ee shacabkani ka mas'uulka ah danahoodu bay ka raacayaan fariintaad u diraysay gobolladii galbeedka maadaama ay matalayaan? anigu waxaan leeyahay ilaahay baa arsaaqda haye baahidani maarataane foosha xun leeydin hor taalla ee idinku kalifaysa inaad sharaftiinna iibisiin iska daayaan leeyahay. ninku waa nin kula mida dawlad baad dhisateen isku mid ahaada limaada qofka gadabuursiga oo madaxiisa iyo indhihiisa u hooseeyaan had iyo jeer oo aw maarataanay kelmadiisana u liidataa waxa weeye dhismaha waddanka inta ugu weyn baan leenahay nagu raggii burcaka ka dhawaaqay abtigay baa ka mid ah Sheekh Muuse Jaamac Goodaad ilaa uu naxariistay hadalkiisina kii maalintii lagu aasaasay buu ahaa Jumalaanta maanta dee qabri buu ku jiraaye waxaana kollaba ma aqbaleen. weli waxaanu ku guda jirnaa daawadayaal waraysigeennii dhinacyada kala duwan taabanaynay la yeelanaynay fadiiladu sheekh xasan daheey axmed qurbajoodka fariintaad u diraysay maxay tahay? qurbajoodka boorama maxaan u diray dee waxa weeye haddii Axmed Ismaaciil Samatar oo kale hadduu nooga imanayo raalli naga ahaadaan hadduu Axmed Ismaaciil Samatar oo kale nooga imanayo oo hadhow odhanaya maxaad idinku qabanayseen markii ay isaaq dagaalamayeen haddii kaasi nooga imanayo isaa noola iman doonaan ha naga joogaan halkooda. aad iyo aad buu maasayay daawadayaal guntiga gabagabadii waraysiga ayaanu soo gaadhnay. ugu dambayn doorasho ayaa dalkan ka dhici doonta ayaa is leedahay dadkan iyo dalkanba hadda waa la dooran karaa iyo kaas waa u habboon in la doorto? wallaahi hadda waxaa jira anigu siyaasadda Soomaaliland nin dhexgala ma yihi mana doonayo inaan dhexgalo inaan mid ka raacana ma rabo laakiin anigu waxa hadda sanadan ugu dambeysay soo baxaysay in hantidii ummadda la iibinayo la boobayo iyadoo nin wasiirihi magac dawladeed ku iibinayo dabadna jeebkiisa ku shubanayo. baxaan la yaab leh anigu boorama anoo yar oo maarataane 61kii iskuul laga qoray gurigii dhiiskaan maqli jiray xafiiskii dhiiskaan maqli jiray oo maanta la leeyahay 2017kii nin bacmashtara laga iibiyey. waa calaamadii boorama ee asalka ahayd weeyaan ee dawladnimo. waxyaabaha caynkaasi waxaan aqbali karayna maaha. lidaalika barbara dekedeeda hadday noqoto airportka barbaraad hadday noqoto iskuulada la iibinaya hadday noqoto xafiisyada la iibinaya hadday noqoto waxaasoo dhan ciddii ballan noo qaaday inay soo celinayso dadku ha doortaan. hantaa ummadda ciddiida xafidaysa ee dib soo celinaysa ee halkeedii ku soo celinaysa ha la doorto. anu ma odhanayo hebel baa soo celinaya laakiin ciddii iibisay way caddahay maanta ciddii jawaab ku sitay way caddahay. kuwa kale ee markaa la tartamaya hadday doonayaan inay Soomaalida fiqadeeda helaan iyo kalsoonideeda ha soo celiyaan harintada. waxa la jeegaya hadda Hargeysa iyo Burco iyo iskuulo iyo ardayda dhiganaysa la iibiyey oo la isku laayay maxaa keenay oo arday ku dhintay maxaa keenay? iskuul soo loo iibin karaa ya xafiis dawlad soo loo iibin karaa? waxyaabahaas oo kale waxa weeyaan ciddii soo celinaysa ayaa waddankan wax kale inay maamusho. daawadayaal intaasi ayaan ku gabagabeynayaa waraysigeennii aad kala socoteen shabakadda caalamiga ee Boorama News. daawadayaal waxay nii soo tabinayay anigoo ah Cabdirasaaq Cumar Meecad Cabdirasaaq Awliya dhanka kaamirada Sadaam iyo Wacays baa joogi. Sheekh Xasan Daheey Axmedna waan ka mahad celinayaa waraysigiisa iyo waqtigiisa uu nasiiyay. aad iyo aad baad mahadsantahay.